السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaynu halkeennii kasii wadi doonaa casharadii taxanaha inoo hayay si socday. Casharkan maanta waxaa sii daba socdaa casharkii hore ee ahaa inaynu flash boot garaynay waynu ku shubnay Windows 7. haddana aynu sugayno sida aynu ugu shubi lahayn computer aynu ugu install gareyn lahayn flashta aynu boot garaynay inaynu Windows 7 ka ku shubnay. hadda waxaynu isticmaalaynaa program la yiraahdo VMware. hadda waxaad kasoo dejisanaysaa internetka kasoo dejisanaysaa ama qof hayaba u doonan kartaa oo soo qaadan kartaa. soo markaa kaas aynu fahmaynaa marka horeysa kaas aynu install gareyn doonaa ka haddaynu si fiican ugu shubno oo inoo shaqeeyo dabeed waxaynu isku dayaynaa inaan isaga laftirkiisa aynu furno aynu dhexdiisa ku install gareyno Windows 7 iyadoona daatadeenu waxba noqonin computerkeena Windowsgiisa hore isaga jirayo laakiin VMware kaasi practice ahaan inoo ahaado si aynu si fiican casharkeena ugu fahanno. haddaynu fahanno VMware kaasi siduu u shaqeynayo iyo sida loogu install gareynayo waxay ka dhigan tahay waxaynu fahnay inaynu computer Windows ka bedeli karno. marka hadda waxaan install gareynayaa VMware-kii waa kan hadda xaggan igu jira aniga waa kan setupkiisii xagganna waa serial-keygii hadhow ku weydiin doonaa serial-keyga. hadda halkan aan wadayaa waa VMware waan install gareynayaa as administrator. next accept ayaan leeyahay next daan badaynaysaa install. hadda isagaa dhamaystiraya installationkaas waqti badan buu yara soconaya markaa videoga waan yara qabanaya sabab markuu dhamaado aan halkaa uga sii bilaabo markaa saa ula socday. hadda uu dhameeyey finish ayaynu leenahay markaa finish. hadda waa kan halkuu inoo dhigay waynu markaa raadinaynaa setupkiisa isagu u dhameeyey. waa kan hadda uga shaqeynayaa markii hore igu sii jireen Windows 7-nadan igu sii jiray soo markaa serial-kay ima weydiin aniga laakiin adigu maadaama aad ku cusub tahay markii ugu horreysay ku shaqeeyo ay tahay wuu ku weydiin doonaa. soo markaa markuu ku weydiiyo ku idhaaho geli serial-kayga waad haysataa waad soo qaadanaysaa dabeedna waad gelinaysaa $. markaa kolba tallaabadu qaadku dhamaan baad qaadaysaa. installationkiisii hore waan dhameynay hadduu kugu cusub yahay oo markii ugu horreysay ay tahay VMware ku shubanayso oo inay kugu sii jirin file isaga ka mid ihi markaad sidaad u wado ayuu ku odhan doonaa markuu ku dhamaystiro geli serial-kay waad soo qaaday markaa serial-kaygii baad sidiisii u gelin koobina ma ogola caadi baad xabad xabad soo qaadan waad gelin next bas isagaas dhamaystiraya markaa. soo markaa casharkan maanta halkaa baynu kusoo gabagabaynaynaa. waan isku dayaynaa inaynu sida ugu dhaqsaha badan usoo gelino kaa dambe laakiin kan horta aynu ka faa'iidaysano installationkaas si fiican aynu u baranno setupkiisa u dhammaystiran. qofkay wax ku adkaadaan commentiga ayuu kusoo qori doonaa si aynu uga caawino wixii ku adkaaday oonuna eegno oo aynu isla xalino. haddii waa la yidhaa